waa muhiim inaad isweydiiso markaad laptop gadanayso maxaad u gadanaysaa, waa maxay ujeedka aad laptop u gadanayso. Midaas ayaa waxa ay jawaabteedu inagu hogaaminaysaa saddexda nuuc oo laptop ah: laptopka Chromebook lagu magacaabo, ama laptop Windows 10 ah, ama laptop MacBook ah. Haddii aad rabto kaliya inaad internetka wax ka daawato sida YouTube oo kale ama Google oo kale waxaad ka akhrisato, budgetkaaga waxaa qancinaya Chromebook oo qiimihiisu ka bilaabmo 180. midaasna waxay ku xiran tahay meeshaad adduunka ka joogto. Haddii aan ka soo qaadno inaad haysato iPhone Pro, aanad diyaar u tahay inaad isticmaasho iCloud, iMessage, AirDrop, qarashkaagana aad ku talagashay, waxaa kugu habboon MacBook Air ama MacBook Pro. Inteena ugu badan waxaa hirgelinaya howlahan ka rabno internetka waa Windows 10 laptop ah. Midkan ayaan fiidiyogan ku sharxi doonaa si qoto dheer. Dhagayste, soo dhowow mar labaad. Intaanad laptop gadan, waxaad u baahan tahay in aad wax ka ogaato 4 shay oo muhiim ah oo la rabo inaad fiiriso. 1. waa maxay? Waa storage-ka ama SSD ku magac dheer. Midka labaad waa processorka waa maskaxda ama wadnaha computerka. Midka saddexaad waa RAM-ka ama waxay afka qalaad ku dhahdaan random access memory, midkaasoo fududeynaya inaad si ku meel gaadha u hesho macluumaadkaad ka raadinayso computerkaaga dhexdiisa. Graphics maxaa laga wadaa? Waa tayada shaashadda computerka aad gadanayso. 4 shay ayaa waxay qayb muhiim ah ka qaataan tayada laptopka aad gadanayso. Marka koowaad, waxaan sharxaynaa storage-ka. Waa maxay storage-ku? Storage-ka saan hore u sheegnay waxaa lagu magacaabaa SSD. waa meesha aan ku kaydino faylasha. Hadday noqoto faylal, hadday noqoto video, hadday noqoto cod, wax kasta oo computerkaaga si joogta ah ugu kaydsamaya ama si rasmi ah ugu kaydsamaya, waxa uu aadayaa storage-ka ama SSD. meeshaas ama SSD waxaa loo baahan yahay in ay xaddi ama mug weyn lahaato si ay kugu qaado wixii aad rabto inaad computerkaaga ku store garayso. Waxaa lagu qiyaasaa SSD ama qiyaas ahaan waxay yiraahdaan waa gigabyte ama terabyte. SSD aad ay uga xawaaro sareysaa marka loo eego HDD. Videogan fiiri. Waa tijaabo la sameeyay xawaaraha SSD, HDD. Marka midaas waa muhiim goor kasta oo aad shaqo ku qabanayso laptopkaaga inaad haysato SSD ama storage mug weyn inuu laptopkaagu lahaado. midaa wax loo baahan inaad ka fiiriso. Badanaa laptopnada qaaditaanka SSD uu weyn yahay, sida hadduu yahay 512 GB hadduu yahay ama hadduu ka badan yahay, inkastoo kaas saa usii qaalihayn, laakiin kuwa intaa ka xajmi weyn ama ka mug weyn waxaa laga yaabaa in budgetkoogu qaali yahay. Haddii budgetkaagu kooban yahay, waxaad gadan kartaa external hard drive waxay dhahdaan, oo ah mid garab socda computerka ama aad dhinac ka gelin karto godadka daloola ee computerkaagu leeyahay. Haddii aad midaa waxaad kaga maarsami kartaa inaad gadato cloud oo ah hadda hab casri ah oo qiimo jaban ku fadhiya. Cloud waa hab casri ah oo aad adeegsan karto meel kastoo adduunka ka joogto. Midda labaad waa processorka ama wadnaha computerka. Midaasna waxay ku xiran tahay waxaad uga baahan tahay laptopka nooca CPU ama processorka aad doonayso. Waxay ku xiran tahay waxaad uga baahan tahay, laakiin waxaan kugula talin lahaa inaad qaadato midka 64 ama 64-bitka. waxaa jira 3 nuuc ama 3 shirkadood oo soo saara
wadnaha ama CPU ama waxay yidhahdaan process unitka computerka. 3 shirkadood baa soo saara, waa shirkadda Intel iyo shirkadda kale ee AMD. waxaan gudagali doonaa Intel waxay soo saartaa Core i3, Intel Core i5 bay haddana soo saartaa, Intel Core i7 waa kuwii ugu dambeeyey. midba midkuu ka dambeeya ayuu ka xawaare fiican yahay ama kuu fududaynaya wixii aad computerka ka rabto inuu xawaare fiican. haddii aad ku daawanayso game oo kale, ciyaalku badanaa game bay ku ciyaaraan, so game oo kale haddii aad rabto, waxaa muhiim ah inaad haysato ugu yaraan Core i7. 5 waa iska culays badan, Core i9 wanaad kuwaas aad isha ku hayso markaad rabto inaad computerka ama laptopkaaga aad rabto inaad game ku ciyaarto si joogto ah, ama mararka qaar baso waa inuu xawaarihiisu sarreeyo ama hakadna ku yiman. dhanka baytariga laptopka ugu wanaagsan waxaad ka fishaa 9 saacadood inuu ka hayo markaad jaajarka u buuxiso, ilaa 12 saacadood oo godadka ama meelaha bannaan ee laga gelinayo xadhigga. haddii aad presentation ama barnaamijyo badan aad qabato, kaliya waxaad u baahan tahay USB-C. waa connector xaggaad ka gelin karto meelahan godadka ee bannaan computerkaaga aad ka gelin karto. xawaarihiisuna aad buu u sarreeya, waa connectorkii ugu dambeeyey. marka connector kaliya umaad u baahan tahay. haddii aad halkan soo gaadhay, aad ayaad u mahadsan tahay. intaan ku kulmi doono barnaamij midkan oo kale ah, waxaan idinka tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.